Asalaamu calaykum dhalinyaro, soo dhawaada. Waa Maal Maxamuud. Waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin. Casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan erey meesha noo saaran. Ereyga koowaad bleed. Bleed waa baryootan. Qofkii inuu wax codsado uu baryootam. Okay. For example, she pleaded him to stay. She pleaded with him. Isagu waxay ka bariday to stay inuu joogo. Yes. Ereygaas plead waxaa inta badan lagu isticmaalaa maxkamadaha waxyaalaha noocaas. In court, maxkamadda. Marka bleed waa qofka ama la xukumaayo ama xukunka meesha u saaran inuu baryootamo ama uu wax codsado. Yes. Ereyga labaad plethora ama plethora waxa waaye wax aad u tiro badan. Excessive amount of something. Waxyaalahan markay aad u tiro badan yihiin. For example, plethora of books. Buugaag aad u tiro badan. Plethora of choices. Dooq aad u tiro badan. Yes. Ereyga saddexaad plight. Plight waa xaalad adag. A difficult situation. xaalad adag baa la yiraahdaa plight. For example, they described the plight of the refugees. They described waxay noo sharaxeen ama ayagu waxay sharaxeen the plight of the refugees. xaaladda ay soo mareen ama kusoo jireen dadyowga qaxootiga. Yes. Ereyga afraad plot. Ereygaas laba micno uu leeyahay. Noun ahaanna waa loo isticmaali karaa. ficil ahaan oo verbna waa loo isticmaali karaa. Plot haddii noun loo isticmaalo waxaa weeye yani the flow of the story ama dhacdooyinka sheekada qaabka ay isugu xigaan. The sequence of events in a story. Yani sheekadan qaabka ay wax isugu xigaan. For example, the plot of the novel was exciting. Yani buuggan sheekooyinkiis qaabka isugu xigaan ama dhacdooyinkiis qaabka ay u nidaamsan yihiin aad ay u xiiso badnayd. Qaabkaas oo isticmaali kartaa ereygaas plot. Haddii ficil ahaan u isticmaasho plot waxaa la yiraahdaa yani dagid ama qof in qorshe loo dhigo asagoonan ogeyn. Dabin. Yes. In qofka dabin loo dhigo ama qorshe la gaaro isagoo laga qarinayo. Yani you are planning something secretly. Yes. Si yani qarsoodi ah. For example, they plotted to surprise her for her birthday. Waxay qorsheeyeen yani weliba si sir ah inay xafladeeda surprise u sameeyaan. Yes. Ereyga shanaad plump. Plump waxaa la yiraahdaa qof cayilan. Qofka markuu yara cayilan yahay baa la yiraahdaa plump. Waxaynu kaloo dhahnaa chubby. Qofka markuu caata yahayna waa slim, waa erey xushmad leh. Haddii caynaysna skinny waa dhigi kartaa. Yes. Ereyga lixaad pole. Pole waxaa la yiraahdaa yani bir ama ul ama geed dhammaantoodba. Yes. He leaned the pole against the wall. Yani wuxuu ku tiirsaday usha ama tiirka ayuu ku tiirsaday. Pole marka tiirkaas waa loo isticmaali karaa. Yes. Ul, tiir, geed, yani wax lagu tiirsado, wax taagan oo ul ah ama tiir waa dhigi kartaa dhammaantood. Ereyga toddobaad ponder. Ponder waa inuu qofka si taxadar leh u fikiro. To think carefully. Qofka si taxadar leh inuu u fikiro. She pondered the question for a while. Su'aasha in muddo ah ayay si taxadar leh uga fikiraysa. Yes. Portray. Portray waxaa waaye to depict. Yani qaabka ama sawirkan inaad qaab maxay ahayd u sawiratid. Yes. Ama qaab aad u soo jeedisid ama qaab aad maxay ahayd u muujisid. Yes. Dhammaantood baa u isticmaali kartaa. Ereyga sagaalaad grace. Grace wuxuu leeyahay micnaha koowaad oo ah yani beauty, qurux. Khaasatan qofka yani qaabku u dhaqmaayo, qaabku u soconayo. Yani qaabku qofku u soconayo u dhaqmaayo markay qurux badan tahay waxaynu leenahay grace. Waa markay noun tahay. Haddii adjective aynu ka dhigan waxaynu leenahay graceful. Yes. Waa adjective. She moved with grace. She moved with a lot of beauty. A lot of elegance. Yes. Qofka markuu socodkiisa dhaqankiisa ay qurux badan yihiin marka waxaan isticmaalnaa ereygaas grace. Ereyga tobanaad u dambeeyo grim. Grim waxaa la yiraahdaa qofka markii uu maxay ahayd murug iyo walwal uu ku tusinayo uu wajiga ka duudayo. Yes. The news was grim and sad. Yes. Yani qofku marna waa maruu dhoola cadeynayo, marna waa mar wajiga ka duudayo oo dee murug iyo waxyaalo ku tusinayo. Marka facial expressionkaas murugta ah ayaynu dhahnaa grim. Casharkeen intaas ayuu ku egyahay. Thank you for listening. God bless you and have a good day. Bye bye.